Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal dhammaantiin kusoo dhawaada baro caalamka xalqadiisii 13aad taasoo aan maanta diiradda ku saarayno waddanka Belarus. Fadlan daawade haddaad ku cusub tahay baro caalamka soo follow garee baro caalamka. Mahadsanid. Sida caadada noo ahaydba aan ugu horeyn ka hadalno sida uu u egyahay calanka waddanka Belarus wuxuu leeyahay laba sharax oo kala ah gaduud kaasoo 3 meeloodkii 2 meel qaadanaya inta kore ee calanka iyo cagaar kaasoo 3 meeloodkiiba 1 meel qaadanaya inta hoose ee calanka iyo weliba sharax dhaqameed geesta ku yaala. Gaduudka wuxuu taagan yahay nafurnimadii xorriyadoonka, cagaarkana wuxuu taagan yahay nolol. Dhulka dalka Belarus wuxuu ku yaalaa bariga qaaradda Yurub. Dalkani wax bad ah xuduud lama laha, wuxuuna u dhexeeyaa 5 waddan oo kale sida waddanka Ruushka, Ukraine, Poland, Lithuania iyo waddanka Latvia. Waddanku wuxuu u qaybsan yahay 6 gobol iyo hal ismaamul magaalo taas oo caasimadda oo lagu magacaabo Minsk. Qaab dhismeedka dhulka koonfurta waddanka Belarus waxay ahayd meel aad u qurux badan oo cagaaran, waxaana loo isticmaali jiray beerashada dalagyada kala duwan ka hor inta aanay dhacin aafadii Chernobyl ee ka dhacday dalka Ukraine. Aafadii Chernobyl waxay ahayd shil ka dhacay warshad hubka nukliyeerka lagu sameeyo oo ku taalay dalka Ukraine, halkaas oo suntii nukliyeerka ay bannaanka timid oo ay hawada gashay. Boqolkiiba 70 in ka mid ah suntan waxay soo gashay waddanka Belarus waxayna saameysay 5 meeloodkiiba 1 meel dhulka waddanka Belarus. Tan ayaa ah sababta Belarus ay maanta u magaalo badan tahay ama dadkeedu badankood magaalooyinka dhisteen oo ay uga soo carareen meelihii ay aafadu haleeshay. Dhulka Belarus waa dhul siman oo sidaan horey u soo sheegnayba bad lahayn. Hase ahaatee Belarus biyo la'aan ma ahan oo waxay haysataa webiyaal iyo lago tiro badan oo ku yaala gudaha dalka. Boqolkiiba 40 dhulka Belarus waa dhul leh kaymo. Belarus waxay leedahay cimilo aan la saadaali karin, waayo waa cimilo u dhaxaysa 2 cimilo qaaradeed sida cimilada qaaradda Aasiya iyo midda qaaradda Yurub. Dadka Belarus waxaa ku nool dad dhan 9.5 milyan kuwaasoo boqolkiiba 84 isku garta inay yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda waddanka Belarus. Daawade maxaad ka taqaan taliska qura ee weli ka jira ama ka taliya qaaradda Yurub? Ninkaasi waa madaxweynaha dalka Belarus Alexander Lukashenko kaasoo ka talinaya waddankan laga soo bilaabo sanadka 1994 ilaa maanta. Hase ahaatee ka sokow isha kaliya ee lagu fiirsho kaliya taliska ay ah inuu arxan daran yahay. Ninkan lagu magacaabo Lukashenko wuxuu horumar ballaaran ku soo kordhiyay waddanka Belarus. Saaxiibada Belarus waxay xiriir fiican la leedahay dhammaan 5 waddan ee ay dariska la tahay, laakiin kalama dhaxayo xiriir fiican Midowga Yurub. Saaxiibka ugu dhow ay Belarus leedahay waa waddanka Russia oo ay taariikhyo kala duwan ay soo kala dhexmareen. Muuqaalkan gaarsii saaxiibada meelna ha ka aadeen baro caalamka. Waxaa inoogu xigi doona oo aan ka sheekayn doonaa waddanka Belgium. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.